waa kuma fanaanka Linas maxaad kala socotaa uurka uu qaaday waa kuma ninka qabay uu nolosha la wadaagay waa tuma heestiisii ugu saameynta badnayd su'aalahan iyo su'aalo kale oo badanba waxaad kaga bogan doontaa warbixintan fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto una share garayso saaxiibada saan u helna saaxiibo adiga oo kala fanaanka reer Mareykan ee Linas waxa uu dhashay 9kii bishii April 1999 isagoo ku dhashay Lithia Springs Georgia oo ah magaalo yar oo ka baxsan Atlanta waalidkiisu waxay kala tageen isagoo 6 jir ah waxaana kafaalo qaaday hooyadii iyo ayeeyadii oo la noolaa waxa uu caan ku noqday qaadista heesaha raabka isagoo noqday fanaan heesiisa aad loogu taxan yahay oo la jecel yahay balse waxa hal mar soo shaabaxday khaniisnimada Linas oo dadka reer Mareykan si kadisa hal mar dhagahooda ugu soo duushay fanaankan caanka ah waxa uu hantiyay abaalmarino caalami ah oo ka mid tahay abaalmarinta Grammy oo sanadkii hal mar lagu qabto gudaha dalkaasi Mareykanka sidoo kale Linas abaalmarinaha kale oo ku guuleystay waxa qayb ka ah abaalmarinta muusikada Mareykanka oo ah mid aad looga jecel yahay gudaha dalkaasi Mareykanka Linas ayaa sidoo kale noqday fanaankii ugu horeeyay ee madow ah ee ku biira liiska dadka isku jinsiga ah isku galmooda Linas mar kale waxa uu hantiyay abaalmarino waaweyn taas oo kaga mid noqday 25 qof ee ugu saameynta badan baraha internetka sanadii 2019 dhalinyaronimadiisii waxa uu xooga saaray ujeedsiga isticmaalka dhanka internetka gaar ahaan Twitterka isagoo ku qori jiray xasuus qorka isaga ku saabsan markii dambe waxa uu wareegay dhanka Facebooka isagoo halkaasi ku baahin jiray muuqaalo yaryar oo madadaala fanaankan caanka ah markii uu qaan gaaray waxa uu la dhibaatooday sidii uu goobaha fagaarayaasha uga muujin lahaa inuu ku biro dadka isku jinsiga ah isku galmooda fanaanka Liil waxbarashada waxa uu joojiyay markii uu bilaabay waxbarashada sare ee jaamacadda isagoo bartay cilmiga sayniska iyo kombiyuutarka hal sano oo jaamacadda dhiganayay kadib waxa uu go'aansaday inuu sii wato oo horumariyo xirfadiisa muusikada waqtigan oo la noolaa walaashii waxa uu ka shaqayn jiray maqaayadaha gaar ahaan maqaayadda Six Flags 2019 waxa uu booqasho ku tagay dugsigiisa sare si uu riwaayad la yaab leh ugu qabto heesaha uu fanaanka Linas qaado ayaa inta badan helay falcelino badan iyadoo inta badan heesiisa la iskaga duubay aaladda TikTok dadka heesaha iska duubaya ayaa u labisan sida fanaanka waxaana ka falceliyay malaayiin qof bishii July 2021 Linas waxa uu sii daayay heestiisii ugu falcelinta badnayd oo ugu magac daray magaciisa Montero muuqaalka heesta oo keenay falcelin iyo buuq aad u badan ayaa dad badan waxay heestan u arkayeen mid sax ah oo xilligeedii ku soo beegantay halka qaar kale oo ka soo horjeeday ay ku eedeeyeen in heestan ay tahay mid shaydaanka lagu caabudayo dhawaan ayay ahayd markii isagu bartiisa Facebooka ku baahiyay inuu leeyahay dhawaan ilmo uu dhali doono taas oo dad badan la yaabiyay fariir ku noqotay ilaa hadda si rasmi ah looma garanayo ninka ay isqabaan fanaankan caanka ah fanaankan ayaa baraha bulshada ka dhaliyay hadalhayn aad u tiro badan taas oo dadku ku cabirayeen ra'yadooda ama aragtiyahooda kala duwan daawadayaal muuqaalkan waxa si tala taaliyeedii ku daadihinaya anigoo Cabdiqani Boosaw Cabdi iyo anigoo ah Khalid Cali Ismaaciil daawada haddii aad warbixinta ka heshay muuqaalka like saar una sii gudbi asxaabtaada kale